إذا الأمجاد قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا سيدركها. doonayno inaan inaku hagaagno ilmaheennu noo toosaan ilmahan dhalnay ilmahay sii dhalaanna ay noo hagaagaan haddaan doonayno waa inaan nolosheennan aan ku noolaan wax ka bedelo weeyaan. qaaradda Amerika ayaa qiso cajiiba la iga sheegay gobolkan la yidhaahdo Massachusetts Boston magaalada Boston ru'asaa'ul kanaa'is kaniisadaha ku yaala statekaas ayaa shir bay ku galeen magaalada Boston waxay ka shirayeen dadkan qaxootiga ee ka keenay Soomaaliya miyaa ku najaxnay oo muraadkan kala hayn ma ka gaadhnay mise waa ku khasaarnay markaasay hadleen waxay yidhahdeen waa ku khasaarnay ila dadkan qaxootiga dhaqaalaha lagu qaaday ayaa bixiya kaniisadaha soo bixiya markay dalkaa galana kaniisadaha istiqbaalo ugu waan ku khasaarnay buu yidhi mid wuxuu yidhi waxaan ugu khasaarnay madaaristii qur-aankay fureen masaajiddii bay dhiseen xijaabkii iyo shacaa'ir alislaam bay muujiyeen kaniisadihii bay naga iibsadeen masaajid u bedileen aadaankiibaa gobol walba ka baxaya shacaa'ir alislaam dhallinyaradoodu garhkii iyo khamiiskii bay muujiyeen waa ku khasaarnay ku kala hadloo yidhi may kuma khasaarin borosasku meel fiican buu socdaa buuhi meel fiican si fiican bay ula haystaan buu yidhi waayo kuwa annaku aan keennay iyo kuwa waaweyn uma soconno kuwa ay gacanta haysteen ay laalaadinayeen ay la yimaadeen dalka ku soo dhashayna uma soconno kuwa ku dhali doonaanna uma soconno jiilka afraad baan u soconnaa buuhi ku dhalan doona Maraykan ee labaad kuwaabaa masaajidda ay kuwani kaniisadaha kuwani masaajidda ay ka dhiseen kuwaabaa ku soo celin doona buu yidhi maxay kaniisado la islama gaadhin ba imika yaa isla gaadhayba 6 sano 10 sano 8 sano iyagoo joogay badilmeenba dadkii dhulka naga tago dhan intii ilaahay u naxariisatayna ee damiirka iyo dareenka lahayd ee duca hore ay u sabaqdayna waa kuwan dhashoodii kala soo yaacaya la iskala yimay waxaaba la isla soo galay wadannadii islaamka 2 sano ka hor annagoo xashka joogna ayaa supermarket halka ay Rejibuuti degan yihiin u dhowaa ayaa xilliga fajarkii aan ka soo baxnay salaadii waxaan iskugu imanay dhalinyar waddanka u dhalatay Makka Mukarrama ku dhalatay Makka ree Makka oo surwaal gaagaaban qabta waxay xidhan yihiin surwaal gaaban baabuurkana music baa ka baxaya bug baa oday baa yaabay saas war Xuseen soo kale buu yahay meeshaan aan joogno ma Paris baa buu mise waa Makka Rejibuuti Paris bay tagaane markaas aan ku yidhi waa Makka Mukarrama xaafadda Zaahir baan joognaa markaas dhashani ma kuwa dibadda ka yimid oo meesha ku soo qaldamay mise waa deegaanka dhulkan markaas aan ku yidhi waa weydiinba mid baan weydiiyey min Makka muwaalid Makka anta muwaalid Makka waa Makka ku dhashay buu leeyahay baan ka yidhi markaasuu madaxa qabsaday oday dareen labo hayo fikray moogta oo daaciya wuxuu yidhi waxaad ku tiraahdaa surwaalkan gaabane hadda inaku aad Maka dhexdeeda ku wadataan annaka dadkayaga iyo dalkayagu 9 baa laga soo gudbay buu yidhi 95 halkii Rejibuuti ay marayeen ku dheh ayaad inaku maanta maraysaan reer Maka Maka la badilay kuwii tagay markaa maxaad ka waraysan kii Riyaad ku dhashaa la badilay kii Madiina ku dhashay baa la badilay bilaad al-islaam qaar al-islaam kii ku dhashay ayaa la badilay sidee lagu badilay waa la fikirayaa waa lagugu soo maqan yahay adiga inaku dhamaantu waan hurdnaa maanta ilaa hurdada ka kacna loo baahan yahay markaas oo diintan ilaahayna siiyey ubadkeena ku tarbiyadeyno raggeena aan dacwadii dadaalka diinta aan isku taagno haddaan diinta u gargaarno ilaahay ballan buu noo qaado wuxuu yidhi yaa aamanuu in tansuru llaha yansurkum
daamakum baa ilaahay yidhi kuwii ilaahay nebiga rumeeyeyow haddaad ii gargaartaan baa ilaahay yidhi oo diintayda u gargaartaan aniguna waan inii gargaar gommadihiinana xaqa ku sugayaa baa ilaahay yidhi haddaan ilaahay diintiisa u gargaarno yaa noo gargaaraya war gargaarka ilaahay kaaga baahan yahay waa maxay adigoo daciifa waxay ka dhigan tahay haddaad diinta kor u qaadaan haddaad diinta ininku ku dhaqantaan haddaad walaalihiinna muslimiinta u nasteexaysaan haddaad ubadkiinna diinta bartaan haddaad diin ku wada dhaqantaan haddaad diinta ka tashataan haddaad diinta dhaqaalihiinna ku bixisaan haddaad madaaristii masaajidda iyo dacwadda iyo khayrka aad dafaqaysaan oo diinta ilaahay ka shaqaysaan ilaahay baa anna waa nii gargaarayaa zilzaal kastoo dhaca caalamka fidnad kastoo timaadana ni dhaqaajin kari mayse lugihiinna gommadihiinna anaa xaqa ku sugaya baa ilaahay yidhi fitnad baa soo socota la idhaha dajaal muminka dajaal waxba ka qaadi maayo ogow marka walaalayaal waxaan ku soo gebagabeynayaa naseexadaydaas dhegaystayaal diineed oo wanaagsan waxaa ka fiican shaqaalo diineed oo wanaagsan maxaa ka fiican nin baa la marti qaaday wuxuu yidhi nimanka maantana marti qaaday way mahadsan yihiin haye laakiin ninka berina marti qaadi doonaa ka sii mahadsan buu yidhi saad masjidka u soo camirteen waxaan ileenahay waad mahadsan tihiin jazaakum allahu khayr laakiin waxaa ka sii mahadsan oo aad ugu sii farxaynaa ninka ilaahay dartii u baxa waryaad ahayn haddaan maanta inaku aan xaqa ka hadli weyno baadilkaa lagugu yeedhi haddaad masaajidda camiri weyno maqaayadaad camiri haddaad muslimiinta aad xoojini weydid oo muslimiinta culammada iyo ducaadda garab u noqoni weydid dadka baadilka iyo siyaasadda iyo qabyaaladda ka shaqeeya kuwaabaad heel u noqonaysaa lidaalika sidaa daraaddeed in sha allah wada niyooda inaan wakhtigeenna dhaqaaleheenna ilaahayna geliyey inaan gaarno siday doonta yaa sidaa niyoonaya dembiga waalidiinteenna allaha dhaaf diinta allah inoo macaneeyo maralkeenna allaha shaafiyo mowtaadkeenna allaha u naxariisto amniga iyo iimaankana allah inoo ziyaadiyo dadkan waddanka kale diinta aan nahayna ilaahay hidaayadda ha ku galladaysto ha u furo muslimiintana muslimiintana albaabka toobadda allah noo furo gaaladana albaabka hidaayadda allah noo furo dadkeenna luqadeenna ku hadlaya dibadaha nagaga maqana meesha ay joogaan allah noogu ilaaliyo diintooda allah ku ilaaliyo caqiidada allah u ilaaliyo shareecadooda islaamka allah u ilaaliyo kuwa la bedelo ilaahay kama dhigee kuwa iyaku wax bedela allah ka dhigo nin walba oo kurbaysana kurbada halka ka haysta allah qaar baa naga xanuun ugu duceeya mar walba leh caafimaad sariica allah siiyo mid walba muraadkiisoo macsilana gacanta midig allah ka siiyo istiqaamana allah ina siiyo timadana allah inoo hagaajiyo cadaab alqabr iyo cadaab almaxshar iyo cadaab annaar allah inaga badbaadiyo firdows alacla allah inagu deeqo jiwaar alxabiib calayhi salatu wasalaam allah ina geeyo muxamed calayhi salatu wasalaam xawdkiisa allah inagu arooriyo hadigiisana allah inagu dilo استقامية قبولنا الله ينسيه هذا وبالله توفيق صلى الله على نبينا محمد